بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan maqطع yar oo kooban inaan kaga hadlo su-aal aan isweydiiyey dad badanna laga yaaba iyaguna inay isweydiiyeen aawe culimadii somalilan culimadii hargeysa aawe somalilan dhan yaan orane qeyb ka mida go-day oo waa waqooyi bari wey laascaanood laga xukumo laakiin culimadii hargeysa ee caanka ahayd xaggee bay ku dambeeyeen warkooda yaa haya aawe sheekh mustafa xaaji ismaaciil aawe sheekh dirir aawe wiilkii yaraa ee daaciga ahaa berberaawi xaggee aadan culimadiini nin walba waxaa khadka lasoo dhigaa taariikh hore oo yuhuudda kaga sheekeeyey iyo xumaantooda qaar waa mufasiriin qaar cilmulxadiid bay akhriyaan qaar fiqi bay akhriyaan qaar taariikh bay akhriyaan muarikiin weye maanta oo ay timid yuhuuddii guryihiini maxaad uga aamusteen waxaad noqoteen qoladii loo sheegi jiray looga sheekeyn jiray dhurwaaga iyo libaaxa iyo saas u egyihiin laakiin markay arkeen inkiray oo waxar mooday ari mooday see xaalkiinu yahay ummaddiiniyo maanta ku hoobanaysa jahanamo maxaa ugu daawanaysaan hadalkaa waxaan u leeyahay oon culamadaas saas aan ugu weeraraya anigu markii hore waan ogaa xaq bay qariyeen baan rumaysnaa markii horeba yuhuuddoon imaan bay dawaaqiidda qariyeen yuhuudda oon imaan bay qabuuri caabudkii qariyeen yuhuudda oon imaan bay sidooda dadkii xaqa uga qariyeen qaarno daaquudkaba ha la adeecay odhan jireen maanta maxay odhanayaan talow afkii baa juuqda gabay ilaahay waa fasheeyey khiyaaligiini keligiina ma ahana kuwa boosaaso joogaana waa sidaas maanta waxay u sacbatumayaan siciidani siciidanina waa garab imaaraadka ah qolada muqdisho jooga waxay u sacbatumayaan qolo ninkii markaa jooga markii hore farmaajo u sacbatumayeen culimada xamar joogta haddana xasan sheekh wixii gadaal ka yimaadana waa sidoo kale iyagoo ogyihiin amisom iyo maraykan ba inuu xaalano degan yahay maxaa culamada soomaalida mid walba gobolka uu joogo uga mid yahay inuu ninka markaa haysta u adeecsan yahay muxuu baatilba ugu inkiri la-yahy wixii o dhan waxaa isku fuuqsaday yuhuuddan barqaacad soo degtay hargeysa oo shacabkii inta usoo banaan baxay calankoodii dhar ka toshay saraawiil iyo xijaabo ka toshay iyo funaanado oo yiri waa walaalaheen oo wasiirkoodii diinta ku magacoonaana uu yiri itifaaq dinyawi aan wada galnay yuhuudda diinteenna dee shaqo kuma leh in la bar yuhuudda waan jeclaha la yidhaahdo waa walaalaheen la yidhaahdo ma heshiis dunyawi ah mise waa caddaysi walaa lilkufaar ilaah mahadi waxaa markii horeba anigu inaan muslimiinba waa aqoon waxa daaquud adeecsanaya qabri caabuda maantana waxaad ku darsateen muxaaribiin banaanka yaalla inaad noqoteen culimmadiinina waa idin daawanayaan waana aamusan yihiin si fiican baan waranka ugu kilkilayaa culamada markii horeba xaqa qarisay aawey sheekh mustafe meel ku sheega waa ninkii la yidhi waa sheikh malaayiin baa jecel waa sheikhii caanka ahaa geeska africa qaar badanoo waxaan arkaya mar dambe haddaan wax ka dhegeysto ma ninka maanta yuhuudda ka aamusay ilaahay baa idin tusay waxay yihiin culamada soomaalida dadka culamada soomaalida culamo moodaya ilaa ilaahay in u naxariista mooye maantoo kalea ilaahay fashiliya soomaalida arag kuwa nairobi joogo trump baalkii muxuuha ii sheeg ammaanaya gaalka kenya haysta u duceynayo khudbooyinka kusoo qaadanaya iyo carabiyadda ku sheegay ninka la yidhaha ruto william ruto waa midba meesha uu joogu yahay subxaan allah subxaan allah nabigu waa ka hadlay calayhi salaatu wasalaam waxaan wax walba idinkaga baqdin badanahay buu yihi a'imat almudiliin aima imaamyo hogaamiyayaal dadka luminaya hogaamiyaha ama imaamkuna labaa loo qeybiyaa dadka hogaamiya waa labo mid waa hogaankan dadka hadda qiyaadada nidaamka ku maamula oo siyaasadda ay yidhahdaan soomaalidu
midna waa midkii diintoo ruuxiga ahaa oo caqiidada ummadda ku maamulayay marka anigu ciro iyo deni iyo xasan sheekh iyo eedeyn maayo waxay yihiin way yaqaanaa horaan mabaadi u kala guuray aawa laakiin culimmadii soomaalidu daba socotay aawa culimmadii loo soo istaagay markay airboodba ka degaan safka loo soo geli jiray may maanta yuhuudda ka hadlaan netanyahu bay la hargeysa haystee hargeysa maanta ayay hoos tagtaa benyamin netanyahu waa hoos tagtaa waan uga digna waa ku baashaara anigu dignintii aan xaq u lahayn waa gudbina ilaahayna waxaan ka rajaynayaa subxaana wa tacaala ninkaan alle hanuun la maagin oon ilaahay u qadarin inuu toobad keeno abaalkiisa inuu helo taa marka waxaan ugu talagalay maqطacan culimmada waxaa hadlay culimo kale sheekh kaariye maalintii koowaadba waa la xiray oo uu ka hadlay waxaa hadlay wadaad kaloo suufiya magaciisa hebelweli la yihahdo oo isagu dadkii u soo bandhigay waxa la yidhaahdo yani abrahamic accord ama itifaaq alibrahimiya iyo gaalnimada ku jirta caddeeyey isna waa la xiray masaajidkii uu joogay culimmadii joogtay waxay iska beri yeeleen waxay yidhaahdeen waa khudbo aanan shaqo ku lahayn beri baanu ka nahay waxaanu annagu kula talnay ma ahan culimmada somalilan madaxweynahooday adeecsan yihiin halkaasu maray waa suufiyadii waxaa isqabsanaya qaarna ogolaaday qaarna diiday aaway kuwii diinta iyo tawxiidka sheeganayay aaway kuwii salafinimada sheeganayay salafinimada ma in yuhuudi loo sacabtumaa mase dadkan u sacbatumaya ee calankii laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah ku qoran dhulka inta tagay yuhuudka ku tumanayo ayaa wax la daawan kara ah maxaase idinku dhacaya ma afka idin qalloocanaya haddaad sheegtaan waxaa ugu badan in xoogaa la idin xiro mise mosaad baa ka baqaysaan mukhaabaraadka yuhuudda maya mustafa maanta xaaji ismaaciil hadduu hadlo ama dirir hadlo ummad badan baa isbedelaysa dad badan baa dareengelaya war ictiraaf baad raadin jirnee ma gaalnimaanu raadinana dad baa sidaa yidhi oo caaqilina ictiraafku jahanamo miyuu idinka galay yuhuud nin raacay waa nasiib daran yahi taa digniinteeda horaan uga soo hadlay laakiin waxaan rabaa dad badan oo soomaaliya oo min galbeed laga bilaabo jiiq ilaa iyo meesha fiiq mi ahayd iyo jigjiga ilaa iyo imayo ilaa iyo n f d gaarisa iyo ilaa iyo masalani ilaa iyo mooyaale iyo inta u dhexayso laga gaaro caluula iyo qandala iyo dhulkan ka sokeeyo soomaalida koonfureed degto min kismaayo muqdisho baay iyo bakool hiiraan iyo mudug meel aan laga dhegeysan soomaalida ma jirto mustafa xaaji ismaaciil iyo sheekh dirir hargeysay maanta fadhiyaan hargeysana yuhuud baa maanta qabsatay yuhuud baa looga dabaaldegaya oo weliba qaar culamo ku sheega intay soo fadhiisteen wiil yar oo aqoon-yahan iska dhigaya ayaa wuxuu yidhi dalxiisayaasha saan ugu helo dhaqaalo looga helo adeeg waa in la iska daaya buu yidhi fiqiga maalikiyada waxaa ka mid a waana waa idin soo dhigaya khadkan idin soo dhigaya marka diinta hadda waxaan maleeyaa baabka iska soo dhamaadaba inay culimadu wasaaradda awqaaftu ay ku noqoto fiqiga si dhaqaale loo helo dalxiisku waa meel ugu badan dhaqaale laga helo markaas keeni mayso xidhnaantan faraha badan ay nagu jirta iyo ictiraafka iskeeni maayaan oo dalxiisu hadduu de meesha caburin ku dareemay iman maayo fiqiga islaamkana waxaa laga soo helayaa wax waasac wey tusaale ahaan madhabka maalikiyadu wuxuu qabaa qofka marookaanka iyo khansiirka wuxuu ka iibinayaa qofka jarmalka ee dalxiisaa wuxuu kaloo ka iibinayaa alcoholka wuxuuna ku leeyahay waa diin caadi dhib ma jirto lianna gaalada furuucda shareecada lagulama hadlin qodobka labaad ee aan rabay inaan ka hadlo waxa weeye marka ictiraafka laga hadlo dhaqaalaha qolada baratay baa kulley insha allah inoo sharxi doontee dee waxaa imanaya dalxiisayaal halkaana waxaynu u baahan nahay in fiqiga diinta ay wasaaradda diintu dib ugu noqoto oo dalxiisu hadduu de meesha caburin ku dareemay iman maayo fiqiga islaamkana waxaa laga soo helayaa wax waasac wey tusaale ahaan madhabka maalikiyadu wuxuu qabaa in dadka gaalada ah waxyaaba inaga xaaraanta laga iibin karo
واحد جت مسألة أصول الفقه جت له هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بحلو dadka aan muslimiinta ahayn waxyaabaha fiqigeena ku saabsan miyaa lagula hadlay culimada maalikiyadu waxay qabtaan maya sida awgeed dad Morocco tagto qofka Moroccaanka khanziirka wuxuu ka iibinayaa qofka Jarmalka ee dalxiisaa wuxuu kaloo ka iibinayaa alcoholka wuxuuna ku leeyahay diin caadi dhib ma jirto laana gaalada furuucda shariicada lagula hadlin marka iyada iska tusaale ku baaqi ma hadda arintaas si gaar ah laakiin si guud baan ka hadlayaa inay culimadu wasaaradda awqaaftu ay ku noqoto fiqh si dhaqaale loo helo talxiisku waa meel ugu badan dhaqaale laga helo markaas keeni mayso xidhnaantan faraha badan ay nagu jirtaa iyo ictiraafka iskeeni maayaan kadaabkaas khaa'inka ah wuxuu yidhi fiqiga maalikiyadu waxaa ka mid ah inaan gaalada lagala hadlin wixii masale farci ah fiqiga maalikiyada maahane islaamka o dhan fiqigiisa sidaas inaan gaalka masale farciga lagala hadlo macnaha waxaa laga wadaa asalkii baa ka maqan oo tawxiid baa ka maqan inaan la dhihin midigta wax ku cun inaan la dhihin khamriga waa xaaraan inaan la dhihin zina marka asaga lagala hadlayo diin loogu yeerayo wey ee wixii ilaahay kaa xarimay ka gad isaga ma aha jaahilkaas sida ummad usii luminaya fiiri khaa'inka ah wuxuu yidhi waxay fuqahadu qabtaa inaan gaalada lagala hadal masalo aan asal ahayn oo farciya taa waa dacwad xaggeeda ee ma aha wixii ilaahay adiga kaa xarimay inaa isaga markaasuu Marocco daliil usoo qaata Marocco nin loo sujuudo haysta sidiinoo kalena yuhuudda yaaba la wareegtayba waxay ku jirtaa wadamada Ibrahimic Accord ugu horeeya imaaraadkay ku xigtaa imaaraad ayay ku xigtaa Morocco marka meesha dilisanaysa waa xaruntii yahuudda ay maanta yahuuddu gacanta ku hayso boqortooyadaasna boqortooyada loo rukuucaba loo sujuudo marka Morocco haddaad tagto waxaad arkaysaa buu yidhi khansiirka waa laga iibinayaa qofka Jarmalka ah qofka Yurubiyaanka ee khamriga raba waa laga iibinayaa waaba diin buu yidhi saas iska diina ee ciriiriga naga saara intii yareed dadku ilaalsanayeen awal bay asal ahaanba soo guuraan yuhuud raaceen oo taaquud daba galeen waxay ilaalsaneen maanta waxay marayaan war khansiirkan aanu ka iibino khamrigana aanu ka iibino masale farci oo dhan waa laga iibin karaa asalkiiba hadday nimankaan isku khilaafsannahay waxaan kaloo dhan dhibaato ma leh zinadu faraci weeye ma aha asal dumarkana ma la siinaya gaalada timid ee soo dalxiis tagtay haweenkana ma la siinaya haweenku tawxiid ma ahane wax farci oo dhan dhibaato ma lahane saad u fasirata marka loo fiiriyo ayuha alkaafiru alcaniid maya wixii ilaahay kaa xarimay waa xaaraam haddaaba dee muslim tahayba wax adiga kaa xaaraamana kama beec mushtari kartid oo xoolahoodii ma cuni kartid laakiin wuxuu rabaa xoogaa nuxurka inuu ka sii siibo dadka hada alcaduw azandiiq laakiin aaway culimmadii cadowgan waa soo duulaan tegey kiisa mukhaabaraadka moosaarka ku xiran kan loogu talagalay ideolojiyada dadka inuu xagga warbaahinta ka khaldo midka kale loogu talagalay isagiina inuu dabaaldegyada diyaariyo rag baa dabaaldegyada iyo dadka guryaha ka soo saara calaamada qaar baa uta dhaqaale ku bixiyey calanka yuhuudda in la badiyo intaasoo dhan dad baa wada waa barnaamij netanyahu kuma dhawaaqi lahayn haddii saldhigiisun uusan diyaar ahayn tallaabada ku xigta midda fayska labaadna uusan u diyaarsanayn yoolbaar kamay ahana wuu ku talagalay oo saldhigga la sheegayo imaaraadku dhisay already inay ciidamadii yuhuuddu degan yihiin oo qalabkii yuhuudda la keenay baa suurtagala berbere eeriyadeeda ku yaal oo dhulka hoostiisa lagu sameeye laleeyahy anugu marka maqطcan waxaan ugu talagalay ninkii ilaahay damiir geliye xataa suufi baa hadlay suufi aan ognaha wuxuu yahay ayaa inkiray suufiya oo ahlu shirki ahlu qabuur ah ayaa inkiray caawa kuwa diinta iyo tawxiidka iyo salafka sheeganayay mideeda kale ogaada qiyaamaha nebigu inuu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa
من سئل عن علمي فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام النار كدير قروبة أذنك ما أنت عدو آمسنان داد كآمسنتي برها لأنشاء السكوت علامة الرضا بالإرادة كآمسنان توحي الدليل علامة تاي إن أوحي رالك تاي لبا إرأيو ترى هذا أي وحوين ما أنت كوجل لهيد مصطفى شيخ مصطفى يا شيخ در ورارنتني وبادر إلهي وقبق كلي هذا مرير هذا لكن ماذا أورن وانا مسلم تضربات كي لباد بلا مريا يهود كنت بالدغيسو دولكي سوماليدا weliba guryihiinniya marka waxaan ugu talagalay maqطacan aan waran uga dhigo kilida uga dhufto culamaa suu alkhawana ka been sheegaya ilaahay diinkiisa dadkana ku siri jiray cimaamad iyo shaati iyo khamiis iyo taariikh laga sheekeeyo iyo xadiidka iyo tafsiirka la akhriyo tafsiirka marka la akhrinayo hore waa caadi buu ahaa markii khayr almaqduubi calayhim wala daaliin marka uu sharaxayo dirir yuhuudda waa dul istaagaya war way joogaan iyagoo socdaa yimid iyagoo lugaynayo life abaa taagana ka hadal mase yuhuuddii xilligii nebiga joogtay iyo kuwanaa kala duwan bal u fiirsa sheekh mustafa oo khiyaanada yuhuudda iyo makriga adduunka ay maleegeyso ka sheekeynaya iyagii baa yimid maanta hargeysa kula joogaan ka hadal sidoo kale berberaawe mise goor yuhuudda ka hadlay iyo xumaantooda sheegay maanta way idin ag fadhiyaan guryihiinni bay joogaan hablihiinni baa u dabaaldegaya gabdhihii soomaaliyeed ee hargeyso joogay baa calanka u ruuxayee ka hadla waa diideen waad ka aamusteen raalli baad ka tihiin marka waxaan ictiraafka lagu sheegay ee yuhuudda la hoos galay ee yuhuudda lagu raacay ayaad raalli ka tihiin ilaahi wuxuu markhaati ka yahay subxaana wa tacaala inaan idinku inkirnay adinka iyo dawaaqiidda wada yuhuuddan wada iyo kuwan kale gobollada jooga kale ee soomaalida iyaguna inkirsan sharciga ilaahay laakiin adinku baar baad sii dheertihiin maanta laba arrimoodba way ku jirtaan waa somaliland baan sheegaya waa marka koowaade ilaahay cadowgiisii koowaad inaad garabka ku qabsateen koowaad yuhuud iyo nasaara ayagoo laba cadow ah ayay sii kala daran yihiin waa kow midda labaadna dalkii dadkii waad kala jarteen ood barkaas yuhuud baa loo jaray insha allah mana socon doonto insha allah mana socon doonto biidni illaahi caza wajal waxaan kusoo gabagabeynayaa weli dabaqabasho aad leedihin culamoy isdabaqabasho inaad soo baxdaan ummadda la hadashaan u bareertaan qalab casriyaa lahay qofkaasoo gurigiisa joogo inkiri karaa maxamed siyaad barre dowladdiisii sheekh mustafa waa lagu xir maxamed siyaad barre iyo cire yaad khatar badnaa oo looga baqayo inay culamada dilaan oo xiraan siyaad barre oo hor istaagtay ood ku inkirtay taaquudkii maanta maxaad waa maalinta weliba gabow adoo dhalinyaro oo nashaad laad inkirtay ood ogolaatay ilahay darti xataa in laguu dilo wataad xirnaan jirtay maanta ood gabowday oo sheikh geeska gees laguu yaqaan maa tiraahda waxaan waa baatil wardadoo ilaahay ka baqa toobadkeena waxaan waa baatil maa tiraahda ciro iyo siyaad barre kee daran markay noqoto badshiga iyo ciqaabta culimo badan buu laayay ninkaas kan hadduu u bato waxaba laga yaabaa inuu isla yaabo oo dadka ku kacaan oo sida waagaasoo kale dee awoodoo dhan gacanta uguma jirto guurtidii iyo balaayo dhan baa ka hor imanaysa kastuu yuhuud yahay oo laga yaabo muusaarku inay kusoo weeraraan israel nagaa soo weerara suurtagala waxay doontaba ha ahaatee irfacuu ra'sakum nimankaasoo dadkana wax u sheega idinkana lafihiinni badbaadsada daaquudkan iyo waxa raacay kufrigooda caddeeya inta goori goor tahay intaasaan idiin soo diraya magacyadiinaan toos u abbaaraya qaar kaloo meelaha ka hadlaa jira wadaaddaa oo yiri maxay xaqa loo qarinaya anigu hebel iyo hebelow baan idin leeyahay qolay hargeysa joogta ee maanta sida tooska uga aamusay arrintan haddana geeska gees dhulka soomaalida shiikha looga yaqaan berridii aad hor istaagaysaa berrigaa inta soo horisato qaala allahu tacaala aad oran doontaa adoo maanta ka aamusay shelfon iyo derfon iyo netanyahu oo hargeysa jooga may wallahi ilaahay waa idinku fashiliyey meeshan haddaydan ka gaarin
lafiina iyo sumcaddiinan aydan ka gaarin caddayntan xaqanna aydan lafiina ku badbaadsan oo xaqu intaan keliya maana ilaahay kitaabkiisa asal laga guuray haddana yuhuud baa lagu sii darsaday halkaasay maraysaa dad xayraansan oo ictiraafka garab maraha qaarkiin ka baqaysaa ilaahayna waad hilmaanteen bal fiiri suufiga ka yimid yeman wax ku soo bartay ee jafari ardadiisii ah xabiib aljafari ardadiisii wey xabiib aljafari suufiyada adduunka kan ugu gaalsana ee xataa rumaysan in awliyadu awood u leedahay inay caloosha ilmo ku abuurto isagaan qarsanaynba ee banaanka la taagan yuhuuddan jecelahay هذا قال نحب اليهود. أي نعم. مرة أخرى أنا أحب اليهود وأكره احتلال المحتل منهم. كيف معلن كيسة سيان عارف كيسة كغيرانية حبيب علي الجفري حفظه الله تبارك وتعالى ودعاء الإسلام كأجوا وين عصر جاني كامدة علماء أن يمن كل ما وحكسوا قاطي كامدة وذات كان هبل ولي محمد ولي اللي يران مريني هذا هرجسة كحران كاسة عاد كيسة ويا أكور كي بنانك صار جاي وكان الدقيق عرّا إنه هذا إنه كل لابتو تل أبيب إنه هذا سو أصلا صحيحة وحي قدام بيا كفرية أنا إن قصدان قبل هراء إنه بعاد أصلا قلي شرق السعودية إنه صار قلي دجال إنه لصق كل ما بان قبا مسيح الدجال سوى يهودي ويلي هذا إنه لصق كل ما شر سواق عتيب هو حن وادم مصاب نجد أيتهاي already لصود مية هوشن لكن وكور سوقية مصطفى حاج إسماعيل يا شيخ در جديدية أول برشة ملاهينه marka waa u diraya culamaas awalba tawxiidkii baad qaliseen ilaahay in cibaadada loo gaar yeelo taaquudna lagu kufriyaad qariseen ummadii awalba horta bustaqoyan saarteen laakiin waa laydinku sii sirnaa shiikhanaga waa lagu hayn jiray taariikhda taarkaad nooga sheekeynaysaa tii ilaahay iyo rasuulkiisu amreen alle cibaadada in loo gaar yeelana waad qarisay gadaal baad marisay kaas al-Andalusia maxaa al-Andalusia hargeysa iyo garowe iyo muqdisho jahanamo u socotee الأندلس هو ما حد كشيء هل كان الجيلاني اللي وعى بذاي إسكده فينا إنكرتي هذيك أبي يروي شيخ عبد القادر الجيلاني هذيك وكور رمية هي تردد مركي أندلس لو صوت شبي باربر كي بادية كشري صوفية علماء صوفية مساكين إسلام كوي يا رأس لأن ما تكسر عليه فرا تاريخ ده أنت بدل لما قرأ أندلس مركي صوت شبطي ما لها كان باربر كي سيشوجي طريقة القادرية وذا مساكين الصوفيين وكتر سنبا إسلامية ودب إسلام كو سعودي تبهتر إسلام ودب أو قادرية ما قادرية عند إسلام كسوع إلا أيها مشركين بل فير انحراف كأمة وكسو اللمياني كاس يعني بل أنت اللي أكتر عرضها سفير لين كان جيلاني عابداي سي أمة إسلام وقو يري كرا هدو سوقو يري سو دين دي سوقو يري ماي كفر وكجر سوقو يري ماي من هذا كان ضدك كتبت كين لها أو شيخ عبد القادر الجيلاني فهم لها إن أنا عابد كرن كو عابد يا أنا مشركين قادرين ده أيها الشك كجلس أو واحد يجا وضد الإسلام ويا ري مركي أندلس لقصة شبي إنا لله وإنا إليه راجعون علماء منحرفين حقي قرنا يوي توحيد كيف قريين أو سنة النبي قريين عليه الصلاة والسلام أو براءة من أهل الشرك والكفر بالطاغوت بقريين ما أنت أيها يدل حقنسه meel ay uga leexdaan beenay garanayn maanta si ay yeelaan male ama cirro iyo natayahan ku kufri ama ilaahay ku kufri way maraysaa waa iska cadda wajazaakum allahu khayran wallahu subxaanahu wa tacaala aclam